faa'iidada labaad ee xadiidku xambaarsan yahay waxa weeye wuxuu tilmaamayaa xoolaha caamka ah oo xaq darro lagu qaato inay ka khatarsan yihiin xoolaha khaaska ah xoolaha dadweynaha xoolaha dawladda xoolaha khasnada dawladda xoolaha mujtamaca xoolaha ummadda in xaq darro lagu qaatay waa ka khatarsan tahay xoolo shakhsi leeyahay inaad qaadato xoolo dad kooban leeyihiin inay qaataan inaad qaadato waa ka khatarsanta maxaa yeelay u fiirsan nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi maradii uu maalintii Khaybar qaatay xaq darrada ku qaatay intaan la qaybinin ayaa naar holcayso korkiisa ku holcaysa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam ninkii keenay waxa yar shiraaga yarka keenay xaq darrada ku qaatayna nabigu wuxuu shiraakun min naar yaa waa naar aad ku holcayso aad ku guban lahayd Soomaaliyeed hayaraysan sababtu waxa weeye xoolahan dadweynaha waxa ku tacalluqaya xuquuq aad u fara badan malaayiintaas iyo boqolaalka kun ayaa xuquuq ku leh waa xoolahoodii haddaad shilinka ka bato xaq darro ku ka bato maalinta qiyaamada malaayiinta meeshaad geyn lahayd aad garanaya saas daraadeed baa nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi arrimaha aad uga digi jiray xoolaha caamka in la iska ilaaliyo laga fogaado hatta iska dhaafe dun iyo irbad ninkii ka qaatay maalinta qiyaamada waa keenaya isagoo xambaarsan waxa sugan nabigeena sallallahu alayhi wasallam kama fi sahih al-bukhari nin la yiraahdo ibn lutbiya oo dawladda shaqaalaheeda kamid ah ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu u diray inuu zakada ka soo ururiyo dadka sakadii uu soo ururinayo dawladdu u dirtay ayaa dadweynuhu markuu u tago ayaa waxay lahaayeen qaybtana waa zakadii oo nabiga gaarsiiyay qaybtana adiga socda yaan hadiyad kaaga dhignay xoolihii isagoo wada keenay markuu nabiga u keenay buu xoolihii kala qaybiyay wuxuu yiri intana nabiga idinka iska leh waa sakadii iyo sadaqadii intana ana la iisoo hadiyeeyo da ana iska leh nabigu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam minbarku fuulay dadku khudba u jeediyay wuxuu ku yiri maxay yihiin shaqaale aanu dirsanayno hawl aanu u dirayno kadibna iimaanaya dhahaya intana idinkaale intana ana la iisoo hadiyay guriga hooyadii aabihii muu fadhiisto oo fiiriyo bal in wax la siiyo oo loo hadiyay macnaha ma fahanteen hadiyadani waxay ku timid kursiga hadiyadani waxay ku timid magaca dawladda hadiyadani waxay ku timid wadiifada iyo shaqada uu dawladda u hayo dawladda dirsatay bilaash lagu ma siinin hadduu guriga hooyadii iyo aabihii iska joogi lahaana koob shaaha looma shubeen xoolahani maxaa keenay kursiga keenay kursigana ayaa iska leh ummadda iska leh ma hooyadii iyo aabihii baa uga dhintay sidaas daraadeed xoolihii nooca ah nabigu waa ka qaaday salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ka tag baa leeyahay meesha fadhiis bal in xoolo lagu siiyo arag yaa wax ku hadiyeynaya miskiin baa tabanaanka taagan saas daraadeed baa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam hadaaya al-ummal ghulul shaqaalaha dawladda wasiirada madaxweynaha barlamaanka gudoomiyaasha shaqaalaha dawladda wixii hadiyad loo siiyo waa khiyaano buu nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi حتى هدية بناك أوجتب صوبتم حيث هاي هدية وحلوجو كينا يوا كرسية هدو كرسية كنا عم قاعد إسكاسو فريستكوب شاه أشوف الميزان أنتوا سن كرسية فولينا وبناك تشوجين شاه لما سينين مالك كرسية فولي به هدية دوه كوب اللودين أو لقود ضلضلي يا إسكاله هدية داس كرسية إسكاله ومضى إسكاله شعبك إسكاله كرسية عدي إسكاله با إسكاله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أمانة ضد إسكاله شعبك إسكاله أدوك مليد النبي صلى الله عليه وسلم مركز وحوير حديثك الصحيحة نكاسي مركو قابك أولها الله وحوكيري إلهي بان كردارتين نفتي ذوك عندي ساكو جرتين متكيني كقات حولها نوع عاسا وحكم ذا هيا رتابنات maalinta qiyaamada ayuu keeni doonaa ama la iimaan doonaa asagoo xambaarsan ninkii neef geela qaatay hal ololaysa asagoo dusha ka saarantoo fadeexaysan buu maalinta qiyaamada iimaanaya
ninkii neef adhiya qaatay riciyaysa iyadoo korka ka saarantay maalinta qiyaamada imaanaya ninkii lacag iyo xoolo urursaday isagoo sida oo kartoomadii iyo muxuu ahay dusha ka sidu imaanaya maalinta qiyaamada adinkoo xambaarsan baad imaan doontaan markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam gacanta kor u taagay oo uu yidhi allahumma hal ballaqtu allow ma gaadhsiiyey xoolaha caamka ah waa halis waana midda maanta la xalaashaday khaasadii baa xalaashaday caamadii baa xalaashaday kuraastan lagu ordayay laaluushka lagu guranayo xoolaha dadweynaha lagu qaadanayo laga taajirayo xageed geli doontaan asagoo miskiin ah oo faqiir ah oo dariiqyada taagtaagan ayuu kursi loo dhiibayaa maalmo kadib bilo kadib sanado kadib qusuur buu dhisanayaa guryo dheerdheer waa taajir waa hantiile war xagee buu ka keenay xagee xoolahani kaga soo daateen waa xoolihii dadweyne oo la dhacay waay waxaa la yaab leh caamada iska dhaafay khaasada kii wadaad la dhihi jiray kursiga markuu fuulo caamada kama sokeeyo yaa jamaaca war yaa xalaaleeyey war yaa fasaxay war soo aakhara ma jirto war soo ilaahay loo tegi maayo war soo adoo qaawan hor istaagi maysid war xuquuqda intaa la eg marka maalinta qiyaamada lagu soo istaajiyo adoo qaawan waxaad isku furatan aan haysan malaayiintaasi xuquuqdooda xageed ka geli doontaa mise inaadan dhimanaynin baad rumaysan tahay war zaynul caabidiin dhimay oo qadaafi dhimay oo sadaam dhimay oo cali ibn saalax dhimay oo fulaan tag oo jabaabiradii tage oo adiguna waa tagi doontaa kursigaad ku fadhidana waad ka dhaqaaqi doontaa wax alla waxaad ka kasabtay oo dhanna ayagoo taagan baad ka dhaqaaqi doontaa ittaqillaah aakhiradaada u tur qabrigaaga u tur ilaahay baad hor istaagi doontaa u tur dadweynaha xoolaha halabsanaya ee iyaga laftoodu moodaya inay iska bannaayeen xoolaha caamka war waa halis waa martac wakhiima wey ittaqullaah xoolahan la iska xalaashaday hantidan la iska xalaashaday masaalixdan la iska xalaashaday wax loo rogmanayo wey ilaahay ka baqa oo aakhiradiina ilaashada